waad dareemi kartaa hooyo gabadheedii yareed oo adeegayso wali adeeg dhaaxaa gaarin dibka loo geystay intuu leeyahay qofka aqal lagu dareemi karaa 22 bishan baarakowda iyo barkii habeenimo waxaa fal kufsi ah gudaha magaalada Gudunlaba lagu geystay Farxiye Cali Maxamed oo Nuur oo 6 sano jir ah isla markaasna qayb ka ahaa dadka ku nool gudaha deegaankan waxa kufsigaasi ka dambeeyay nin la sheegay inuu ka imaaday meel duleedka ka ah magaaladan Farxiye Cali Maxamed oo Nuur oo 6 sano jir ah ayaa daqiiqad yar ka hor intaan kufsiga loo geysan guriga uga soo baxday kuleel ay dareen taawidi ayadoo aysan wax ku ogeyn waalidka dhalay Farxiye waxay seexatay meel aan sidaas uga fogeyn qolka hoyga u ah hooyada dhashay ilmaha kale ninka kufsigaas ka dambeeyay oo lagu magacaabay Maxamed Cabdi Dhowr ayaa ka soo booday darbiga guriga Cali Maxamed oo Nuur kaas oo ku yaala waqooyiga deegaankan wuxuuna Farxiye isugu daray ceejo iyo kufsiga ayadoo aysan wax wara ka haynin waalidka dhalay maadaama ay ahayd xilli saq dhaxa isla markaasna badi dadka guriga ku nool ay hurdeen wax ku dhow 30 daqiiqo oo ceejo lagu hayay Farxiye Cali Maxamed waxa shaqarteeda ku kacay hooyada dhashay waxayna ka sheekaysay waxay la kulantay markii qeylada gabadheeda ay ku soo kacday qolkan jiifay caruurta yarka banaanka fiidkii hore iga hurdeen waqti 5 saacan ka xarxaraystay gabadheeda bahal gurigan jiifiyay waqti adoo 5 saac ahayd ilaa 7 saac maraan anu ku qiyaasayo laakiin saacada markii aan fiirinay 7 saac ayaa bar ay ahayd laakiin buuq baa ka horeeyay waxaan maqlay shanqar baan dareemay shanqarta markaan dareemay waan shakiyay telefoon ifleer dhaxama haysan telefoon saa u dhex u ifiyay ifinka ifay waxa u jeedo qof xoog la weyn oo ordaya ilaa meeshaas gabadha ay jiifto guriga iridiisa darbiga geesas gaaban buu ka booday gabadhii ooyayda baraarugayda ayadana hooyo saa wax ku gaarin hooyo xagaa gabadha anoo la fadadsan oo gabadhi taabanaya oo qolka iridiisana jooga uu soo laabtay isir kolleyto rag carrada ma joogo meesha baadiya kaaga luntay ku laabo ee soo qaadadkii amaaday dhagax qaado iska difaac xoog iyo awood intuu la inta gadaal iyo tuura guriga gadaal igu tuuray oo bahalka la iska kay celsho guriga soo qataarkaas bacdigeed adooga maqlay qolkiisa jiifay wuu soo baxay soo bixitaankaas uu cararay oo darbigiisa ka booday Cali Maxamed oo Nuur oo ah aabaha dhalay Farxiye xilliga kufsiga loo geysanay gabadhiisa Farxiye waxa hurdayay qolkiisa ninka kufsiga geystay ayaa kor ugu xiray qolka uu jiifay si uusan ugu soo kicin qeylada Farxiye waxa uu sheegay in falkan argagax uu ku reebay deegaankan isla markaasna walaac weyn ay dareemayaan waxa sidoo kale uu sheegay in falkan uu naadir ku yahay deegaanka isla markaasna si weyn looga xumaaday runtii falkan wuxuu lagu abuuray walaac inteeda laag marka waa dareemi kartaa dhib dhacay oo gabar yar oo 6 jir ku dhacay aabaheedna uu arkay oo uu la kulmay dhacdadii laftirkeedii durbada marka waxa isbedelay qofka moralkiisa qaabka uu yahay ayaa isbedel ku imaanaya runtii wax laga murugoodo ayay nagu noqotay suurtagalna ay tahay murugadaasi inay muddo lagu raagto dadku anfariir bay ka qaadayaan laguma aqoonin runtii fal lagu yaqaanay maahay falkan waa fal naadir ah aad buu u yaryahay in falkan uu ka dhaco deegaankan hadda aan ku noolnaha waxaan ka hadlayaa degmadan Gudunlaba aad buu naadir u ahaa marka dadku anfariir bay ka qaadayaan oo way ku soo wacayaan way ku weydiinayaan runtii sida wax yihiin ayay ku weydiinayaan khaas ahaan anaga kullayba oo waalidkii ah hooyada ilmihii kale iyo adooga inta argagax ilmuhu kale xitaa ay ka qaadeen oo ay yaaban yihiin oo ilmuhu ku leeyihiin war aabe hooyo maxay tahay waxaan kufsiga loo geystay Farxiye Cali Maxamed oo Nuur kadib waxa dadaal loo galay sida baartan lagu sameeyay lahaa isla markaasna loo ogaan lahaa shakhsiga falkan ka dambeeyay aabaha dhalay dibanaha falkan kufsiga loo geystay ayaa sharaxay sida ay ku ogaadeen ninka kufsigan geystay iyo sida ay u suurto gashay soo qabashadiisa billa waxa uu ninkaasi kaga tagay meeshii runtii qalab dabagal fiican loo noqday oo aan ku ogaan karno mobilka gacanta ayuu meeshii kaga tagay mobilkii gacanta ayaan gacanta anaguna ku dhignay taas ay dabagal ku sameeynay oo runtii loo sahasho loo fududeysay runtii soo qabashadiisa booliska degmada Gudunlaba oo raadiyay oo runtii muddo dheer raadinayay oo ilaa saacado badan ay uga qaadatay oo raadkiisa daba kacay meesha dhulku waa dhul caduun ah yani caduun marka la waxa la jeedaa inaanaysan dhulku dhagax ahayn marka raadkiisa dabagal lagu sameeyay asagu uu fakad asagoo ah ay baacsadeen soona heleen soona qabteen ka bacdina aan dacwada raadsanay maadaama aan dhibana u lahayn howlgal ay muddo sameeyeen ciidamada ammaanka Galmudug ayaa suurtagelisay soo qabashada Maxamed Cabdi Dhowr
oo loo haysto inuu ka dambeeya falka kufsiga ah ee loo geystay Farxiyo Cali Maxamuud kaasoo 22 bishan ka dhacay gudaha deegaankan waxaa lagu xiray saldhigga booliiska degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud muddo kadib maxkamadda gobolka Galgaduud ayaa Cadaado ka bilowday dhageysiga eedda loo haysto Maxamed Cabdi Dhoore maanta waa 25 bisha Agoosto ee sanadka 2021 maxkamadda gobolka ayaa soo saartay xukunka Maxamed Cabdi Dhoore sida uu ku dhawaaqay Axmed Salaad Kulane garsoorka maxkamadda gobolka Galgaduud waxa uu cadaatay in eedeysane Maxamed Cabdi Dhoore uu yahay dambiile galay fal dambiyeedka ku xusan qodobka 398 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidaas darteed si waafaqsan qodobka 123 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ku heshay eedeysanaha fal dambiyeedka lagu soo eedeeyay ee ku xusan qodobka 398 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna u aqoonsatay inuu yahay dambiile waxay ku xukuntay dambiile Maxamed Cabdi Dhoore in Aamina Xasan Jimcaale 5 sano oo xarig ah iyo 2 halaad oo ah magti dhibban Farxiyo Cali Maxamed waxa loo cuskaday xukunka asbaabaha sare ku xusan cidaan ku qancin waxa u furan racfaan muddo 30 bari ah Xasan Axmed Maxamed Kalsan TV Galmudug